Hello everyone, waa idin salaamay saaxiibayaal. Magacaygu waa Qalboos. Haddii aad channelkan ku cusub tahay, please subscribe saar. Sidoo kalena share si uu asxaabtaada u gaadho. After waqti dheer kadib, maanta waxaan duubaynaa waxay isleedahay weekly recap wixii wiigagan dhacay. Weekii hadda shalay toole jimcihii ugu dambeeyay wixii dhacay. Kaasoo aad u wacnaa. bishii November iyo bishii December iyo bishii hadda lagu jiro iyo January-ga iyo sanadaha soo socda waa suuq waxaan ka rajaynaynaa in alla guul naga siiyo. Haddii aad still weli suuqan Australia ka dareemayso psychology-gaaga iyo system-kaaga in hagaajiyo labada waxna ma baahno. Haddii ku haysto financial problem isagana waxaad samaysaa usoo shaqayso amba shift yar shaqo raadso, laakiin lacag deyn iyo lacag jaamacadeed suuqan kugulama taliya inaad la timaado. Sababtoo haddii aad lacagta gubto waxaa laga yaabaa inaad pain dareento aad kasoo kabsan weydo. Markaa dhalinyaro tayada aan siinayo amba videogan wuxuu noqon doonaa the last video aan channelkayga dhigo amba qaar baa ka dambeyn doona ma ogi. I don't know how it's like say noqon doonto inaan mashquuli doono. waxaan leeyahay niman yahow suuqani waa psychology iyo system fiican aad haysato. labadaas dad haysato aad suuqan la dhiil garanayso wixii kuwaale nimankan bayadka soo dhigaya meelaha soo dhigaya waxaan waa good mo waa good hal bil oo kaliya nolosha isbedeli kartaa maaha sanad. hal bil gudaheed wiiga horena phase 1 baasin kartaa, wiiga labaadna phase 2, wiiga saddexaadna bayo dalban kartaa. marka nolosha lagu sheegayaa sikimo talada sikimo isku bedeli kartaa wadadii sik wax ka yar. marka waxaan isleeyaynaa weekend I think in a foreign position intii wax noocaas qaatay so waxaynu ka horeynaynaa euro. Let's focus on euro. So marka hore price-kan waxaan kasoo bilaabaa daily xaaladda wixii qaaday waxa loo yaqaano weekly high and the weekly imbalance baa la joogaa. So waxaan target garanayaa marka internal league joogo external baan target garanayaa. So suuqa marka hore daily baan soo bilaabo daily wixii qaaday fariiqa oo weekly sidoo kalena weekly and price. So price ku xigtay waxa loo yaqaano gap new daily opening gap new daily new weekly opening gap baa loo yaqaano gap sidaas. So let's say I'm going on 1 hour 4 hour. So 4 hour ka price ku sameeyay hadad Monday joogto price ku sameeyay wuxuu waxa loo yaqaano a fair fariiqa. sidoo kalena haddana wuxuu buuxiyey waxaa loo yaqaano isagana 4 hour fair fariiqa oo ahaa misti ahaa. sidoo kalena haddana wuxuu buuxiyey waxaa loo yaqaano fair fariiqa oo ahaa misti silaasidii waqtiga. and then waxaa dhacay price koodana intaa markuu sameeyey. So let's say focus entry liquidity kalaan arbacadii waxaa qaadanay 1 hour kii haya. So haddaan 1 hour kaado let's say indhaho wuxuu sameeyey Tuesday waa kan sidoo kalena waa kan isagana Tuesday entry kala baxay entry kala take 1 hour then 4 hour inkastoo halkaasi London Hyde ilaa halkaasi waa khamiistii salaasidii waan joogaa. So arbacadii price wuxuu sameeyey waxaa loo yaqaano entry 1 hour fair fariiqa entry oo qaadanay waxaa meegino horta suuqa sidii lagu generate garinayay baan kuu sheegi rabaa.
defaultkan waxaa ku jira waxa loo yaqaano high resisting liquidity ama low resisting liquidity ay doonto lahaado. So wadama isla eegno intiriyadii baxay iyo stageska. Horta Monday snippet I took this one. Monday Tuesday waytani salaasidii waxaan qaatay waxaan jeedaa Isniintii I took this one. Price wuxuu sameeyay 4 hour fair value-ga tagay sidoo kalena wuxuu qaaday waxa loo yaqaano eagle highs. Eagle highs markuu qaaday price wuxuu sameeyay wuxuu ku noqday waxa loo yaqaano fake mini inversion oo rusay noqoto walba ku beegan shiftiga oo this entry inkastoo entrygaas ahaa oo like suuq laanchkii haddana maynaan qaadan sababtoo option bayga baxay. So I missed sidii baan fursad macayna siiyay suuq price-ku wuxuu sameeyay wuxuu qaaday 15 minutes hayga intaa markuu tagay entryga kama ku banaana. So I took this one. halkan maan taagtirinay asalkayga halkan maan dhigtay so this one tua this logan buha way asalkaygan meelaan ka dhigay. So kaas waa another entry baxay kale ay isaguna ahaa Tuesday-gii inkastoo kan launch-ayd so trade kan maan qaadan sababtoo New York ma trade gareeyo London ma trade gareeyo. So another trade kala baxay week-ga wuxuu ahaa Arbacadii waxaa baxay I think this trade baan ka baxay TU iyo this one buu ahaa sababtoo newsgaas tigan sameeyay بعدي حسب كيوا متنين تابع سالم نيوك مكتر كريم ولا this trade كان ما نقاله this trade كان انت بحي بوا عندنا trade كلا بحي وحوها الله يقانو this one بوها so to price كو وحو سميي وحو قادر وحو فعل قروبين انو قايقان قادر وشيو SMT سميسي and then price wuxuu sameeyay waxaan ka qaatay is fair value-ga kuma ka qaatay waxaana taageeranayay lagu tuuntay this one crazy. So baba xidhay horta u arkayga markii meelahan soo gaadhay riihan baa meelahaasaan ku xidhay so kaasina wuxuu ahaa khamiistii buu ahaa jimcihii isagana intriga baxay haddaan isla eegno intriga baxay isagana bay buu ahaa bayna wuu ahaa laakiin baygan jimcaha fasalkeedii ma ahayn jimcaha fasalkeedii kan buu ahaa this one. So GU baan qaatay another trade oo meelaha ka samaysay fair value-ga iyo AUD. So I took this one intaasaan qaatay waxaana taageeranayay looga. So marka haddii uu videogu yara zero like aan zero loo sharxayo it's okay. So wixii haddaad intriga la aragto it's okay dad aado hoos haddaan suuqii jarjiro wax micnoo soo kordhayo male. Only liquidity-gaan u soconay this one buu ahaa also this one ma taageeranayaa also this one ma taageeranayaa. So waxaan aaminkaranayaa this logan sababtoo price-ka wuxuu qaaday only lowgii la sameeyay 2.30 uu qaaday sidoo kalena wuxuu qaaday wax loo yaqaano liquidity amba high liquidity line iminka hadda waxaa rabaa inuu this one qaado or inuu this one qaado. So since suuq markuu furmo waxaan rajeynayaa inuu ku noqdo daily fair value gaabka and then sababtoo something oo tara 4 hour la bixiyo 4 hour saa u socdo
guys waxaa keliya suuqaad ka geysaa waxa weeye inaad combaasiso inaad waxaa baasiso iyo inaad trade qabato wingareysa waa easy laakiin ma noqon kartaa portfolio inaad week kasta amba 14 cisho marka suuqan lacag kala baxdo waa level adag in la gaaro first bite-ka kubadda samayn kartaa laakiin su-aashu waxa weeye ma samayn kartaa the next year buy if I know hadday tahay dee macnaheedu ma still ma noqon profitable still wax tayo still valuation trader baad laakiin when you are marka tantrosho profitable trader-ka aad mood amba weekii sanad haysaba maxaa la yidhaha akoonka marka waxaad dhihi kartaa this year profitable baan ahaa profitable trader laakiin one buy-daad samaysay macnaheedu maaha inaad profitable ku tahay wayse lucky baan dhihi karaa marka nimayaw suuqani suuqeeni this year waxyaaba badan baan rajaynaynaa waxaan hadalkaygu soo koobayaa maamaa yar oo tiraacida samaysa maqaqaan laakiin I think tiktok waa cidina nooma maqna ceello nooma qodna marka choice-kaan haysanaa ma aha inaan isdhiibno choice maba haysanaba marka khayr baan idin rajaynayaa bilow